Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa maanta soo gaartay diyaaraddii ugu horeysay ee sida qaadka mirooga ah. Imaashiyaha qaadka ee Muqdisho ayaa horudhac u ah inay isku furmaan suuqyada magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee suuqyada labada dal ayaa waxa ay daba socotaa heshiiskii dhowaan ay magaalada Nairobi ku kala saxiixdeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta oo ku heshiiyey 11 qodob oo uu ka mid yahay in qaadka Kenya la geeyo Soomaaliya. Qodobada kale ee lagu heshiiyey ayaa ka mid ahaa in la iska kaashado arrimaha ammaanka, gaar ahaan la dagaalanka Al-Shabaab, xogaha sirdoonka, xuduudahana la isku furo. Sidoo kale qodobada ayaa waxa ka mid ahaa in danaha labada dal si wadajir ah looga shaqeeyo, in la ixtiraamo madaxbannaanida, iyo in la iska kaashado arrimaha bini'aadanimada, iyadoo Kenyana ay ogolaatay in dib loo bilaabo duulimaadyadii shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ee hore loo hakiyay. Sidoo kale waxaa la xaliyay caqabadihii ka jira fiisaha Kenya, gaar ahaan waxaa loo fududeeyay mas'uuliyiinta dowladda, dadka haysta baasaboorka diblomaasiga iyo kuwa haysta baasaboorka sarfiska, iyadoo ay heshiiska ka mid ahaayeen in dadka haysta baasaboorka caadiga ahna muddo 10 maalmood ah ay ku helaan fiisahooda. Heshiiskaasi labada mas'uul ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.